berri oo ay ku beegan tahay maalintii uu dhashay xabiibkeennii Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa culimo awdiinka magaalada Hargeysa ay ugu baaqeen bulshada reer Somaliland in la xuso oo la weyneeyo maalintan uu dhashay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoo sheegay in loo baahan yahay in lagu daydo oo la raaco sifaadkii uu lahaa Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee waxayna bulshada reer Somaliland u soo jeediyeen cidii karaysa maalintaasi in ay soonto si aynu u raacna bay yidhaahdeen sunnihii Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee oo maalintani soomi jiray iyagoo amuurtaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen rasuulku xula waa maalinkan dhashay isniintu waana maalinkii waxyiga samaawiga amarkii waxyiga ilaa soo dejinay igu soo dejinay buu marka waxaan u soomanay buu nabigu lahaa shukran lillahi tacaala shukri aan rabbiga cadiimka u shukriyayo ilaahay maadaama uu iga yeelay khayru khalqillahi ayaan anna u soomanayo nabigu lahaa sallallahu alayhi wasallam marka waxaa laga qaadanayaa oo caalamul islaam culimadu mucaasiriinta iyo qadiim ku hore ku dambaba isku waafaqeen in dhalashada xabiibka ahayd farxatan lilmuslimiin farxad islaamka oo dhan ah oo sadaqaad la bixiyo iyo nolol la siraado iyo ubadkoo laga farxiyo iyo siiradiisoo la bara ay tahay mashruuc baa len ruuxa sadaqa bixiya waxay daliil u noqonaysaa rasuulka akhlaaqiyaadkiisa waxaa kamid ah uu deeq badnaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam ajwad annaas nabigu kii deeq badan buu ahaa wuxuuna sii deeq badnaa waqtiga ramadaan ay soo gasho ay jibriil kulmaan macalinkiisa marka akhlaaqdiisii kale maynu wax ka soo qaadano wuxuu ahaa naxariis badnaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam awlaadda oo kale u naxariisan jiray dumarka u naxariisan jiray carmalyada u naxariisan jiray dadka u walaalayn jiray marka khuluqiisa kariimka aan ku dayano muhiimadda u weyn ka leenana waxay tahay kufaartu waxa ay faafiyaan nacaybka rasuulka sallallahu alayhi wasallam jamiic al-islam islaamkuna wuxuu faafinayaa maxabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo nabigeena ayaa xadiis saxaabada ku lahaa midkiin imuu rumaynin ilaa aan noqdo kii iga jecel waladka uu dhalay uu jecel yahay waalidkii dhalay iyo khalqiga dhammaanba caawa iyo berri waxa weeyaan waa moosinka ugu weyn ee dhalashada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waa habeen ay tahay inaynu samayno farxad aad u ballaadhan waa habeen aynu aad iyo aad u muujin doono farxadda iyo ku rayraynta nimcada ilaahay uu bixiyey ee uu siiyey caalamul islaam xiinamaa wulida alxabiibu sala allahu calayhi wasalam fa innaha fi hadihi alleyla فإنها 12 في هذا الشهر الربيع الأول وحويان واللبية طبعاً بشهر الربيع الأول وعاو إيه برية وحين نقول واجبة وإن التهي إنه إجنه إنه أرجنه إنه صمينه أفعال الخير والسعادة والفرح والسرور في عالم الإسلام ميل كستو أي توجان إنه كصمينه فرحة قالقة dhalashada xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam